aad baan u mahadsantahay guddoomiye guddoonka golaha wakiilada mudanayaasha golaha wakiilada madaxweynaha golaha xukuumadda iyo dhammaan martii sharafka waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudane madaxweyne waxaad xilka haysay 9 bilood wejiga dhabta ah ee xukuumadda hoggaamisaana waxaa la moodaa inuu ku jiro maalmihii ugu dambeeyey muddaxileedkaaga waxaa 9kaas bilood burburay kalsoonidii bulshada dhaqan ahaan siyaasad ahaan iyo akhlaaq ahaan waxaa bilowday kacdoonno bulsho oo dawladda lagaga soo hor jeedo waxaa dadku walwal ka qabaan badqabka jiritaankooda waxaa ugu dambeeyey masaajidadii oo bilaabay inay qunuudaan cabsi darteed sidaas daraaddeed mudane madaxweyne maadaama adigii khilaafka adiga madaxweyne ku-xigaankaagu soo noqnoqday isaguna oo uu yahay mushaakil dadka niyad xumi ku sii abuuray in lama habboona adiga iyo madaxweyne ku-xigeenkaagu inaad xafiiska bannaysaan si aynu u badbaadinno bulshadeenna inta aan baarlamaanku jawaab ka bixin dareenka bulshada ay matalaan aad iyo aad baa u mahadsantahay mudanayaal waxaa weeye idinkoo sharfan madaxweynuhu waa madaxweynihiinnii su'aalaha aad weydiinaysaana ha ahaadeen su'aalo hufan oo sharfan oo aan personal attackna lahayn dalka iyo dadka maslaxaddiisana ah saasaan codsanayaa bliis insha allah bismi illaahi raxmaan raxiim waa koobaynaa labadaas su'aalood baan u doon doonaa insha allah mudanayaal iska bismi illaahi raxmaan raxiim bismi illaahi raxmaan raxiim waan u mahad celinayaa xildhibaanka hadlay waana qadarinayaa habka maamulku u socdo in ajendaha baarlamaan baan ahaan jiro baarlamaanku ajendaha inuu ku socdo weeye laakiin dooddu inaad halka ku furtaan maanta aad baan ugu faraxsanahay bulshadii xooggeeda joogtay labeenteeda xaqiiqda marka loo hadlo dadka dalka xogtiisa ka haya ma aha baarlamaanka oo keliya dalka xogtiisa waxaa haya dadka reer puntland oo dhan markaan xil ka qabannay meeshuu dalka joogay waad ogtihi maanta waxa aan sheegayno ma aha hadallo warqado ku qoran waa xaqiiq dhab ah oo jirta amniga meelihii ugu darnaa waxaa ka mida magaalada boosaaso waxaan filayaa dad fara badan oo mas-uuliyiinoo halka fadhida inay boosaaso ka yimaadeen waxaan ka rabaa cawil inuu caddayn dhaba keeno meesha amni darro darteed loo qunuuday masaajidka laga qunuuday jawaabtiisaa laga rabaa 2 waxaa dhulka sanaag oo dhan boqolkiiba 99 marka laga reebo magaalo yubbe iyo in yaroo la mid ah gacanta puntland soo gashay muddadii aan xilka haynin waxaa maanta la joogaa oo wasaaradihii dawladda oo dhan joogaan magaalada buuhoodle oo markaan xilka nimid khalkhal abni ka jiray iyo gacanku haynta dawladda oo maqnay waxaa la sameeyey 4 xarumood oo ciidanka lagu tababaro iyagoo aan lahayn hal xero oo xataa aanan dayr lahayn waxaa maanta ku jira xerooyinka tababar ku socdo 520 xerada xorgoble oo maalinta talaadada aan furayno waxaa lagu guulaystay degaankooda in si daah furan loo furo oo dadka oo dhan ay si midaysan uga shaqeeyaan waxaa isbeddel ku dhacay sumcaddii iyo horumarkii puntland dhinaca dhaqaalaha 7 bilood 8 bilood aan joognay mushaharkaan bixinaynay cawil oo ka tirsanaa maamulka hore agaasinkiisa waxay ku guuldarraysteen inay bixiyaan mushaharooyinka waxaan caddaynayaa inaan isoo taagnay waxaan ka codsanaynaa inoo ilaaliyo xasiloonida waxaan caddaynayaa inaan ishortaag ku samaynay habka ay doonayaan xildhibaanno farkutirisa inay dawladda maamulkeed ula wareegaan oo iyagu ay rabaan inay dhitarmayn ku sameeyaan waxaan runta u sheegayaa hadalka uu ka hadlay guddoomiye su'aashayda ha ka jawaab madaxweynuhu meel kaluu marayaa hadal madaheed mudane hadalka madaheed baad weydiisay waad aamusaysaa nidaamka dawladnimada haddaadan raacinna mas-uuliyaddeeda adaa qaadi doona dawladnimadu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo uma baahna in ashuun lagu addimo ma ahin nin lagu cabsiin karo in aan waajibkayga aan garan waayey
mana ahi nin loo sheegi karo danta iyo dowga dawladdan ay dooratay inaan ku dhaqdo waxaan rajaynayaa shacabka puntland inay wakiil ka noqdaan horumarka dalkan u socno waxaan leenahay mawaaqif siyaasiya waxaan leenahay mid amni xukuumaddana annagaa mas-uulga madaxweynahana u doorto ilaalinaya baarlamaanku waxaan rajaynayaa inay shaqadiisa aqoonsadaan waad mahadsantihiin fadhiista